Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo ka kooban 11 xubnood. Madaxweyne Waare ayaa sheegay inuu arrintan kala tashaday madaxweyne ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe Xuseen waxa uuna amray inay si degdeg ah u soo gudbiyaan qorshahooda ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub. Markii uu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle qodobkiisa 51 qodobkiisa 61 magacaabista guddiyada madax banaan, markii uu arkay baahida loo qabo in la helo guddi farsamo oo ka shaqeeya doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle, markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle waxa uu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle uu magacaabay guddi farsamo oo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. xubnahaas oo kala ah xubnaha soo socda: 1. Cusmaan Maxamed Mukhtaar gudoomiyaha guddiga. 2. Siciid Hagar Camalow gudoomiye ku-xigeenka guddiga. Maxamed Macalin Xasan Kulmiye gudoomiye ku-xigeenka guddiga. Cabdirasaaq Cumar Bood xogyaha guud ee guddiga. Siyaad Maxamed Isaaq afhayeenka guddiga. Cabdishakuur Ibraahim Cabdiraxmaan xubin ka tirsan guddiga. Cabdiraxmaan Maxamed Muumin xubin ka tirsan guddiga. Cabdirasaaq Ibraahim Axmed xubin ka tirsan guddiga. Axmed Maxamed Cabdullaahi xubin ka tirsan guddiga. Cabduqaadir Nuur Cujub xubin ka tirsan guddiga. Raagi Xasan Cusmaan Xuute xubin ka tirsan guddiga. Waxaa la farayaa guddigan inay soo gudbiyaan qorshaha shaqo ee soo magacaabista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle.